xarunta xanaanada digaaga ee Somali Chicken doqoni waa habeen oo waxa gala wardaale aniga dambeeye waxaan hilib digaagay ummadii dalkeen iyo reeruhu ku daateen dad baayay amaano kulay daawo weeye xagee laga durduurta ana daawasho u tagay niman baa diyaarsho xirfad weeye daacad ah xarunta xanaanada digaaga ee Somali Chicken ma ogtahay dadweynow xarumaha digaaga iyo ruga lagu daryeelo sida dayracadka u dhalay hanti weeye dahab oo dayac laga ilaasho wax kasta darka u yaal daryeel caafimaad iyo digtoorow cilmi leh oo laga keenay dibadda daawadiisa qaabila durba wuxuu u naaxaa sida dibida oo kale waxa laga durduurtaa nafaqada ku dihin oo mirka qura digaaga markuu reerka deeqa diriskana wax laga taray hilibku diyaariyo waa duwax macaano nafta doojinaaye ka dalbada kambaniga Somali Chicken ukuntiisu daawiye waa difaaca unugyada waxa taa ka sii daran hilibkiisu deeqay qof hadayna laasima dhig la'aan ma diido dumarkii caruurtana ilaa dureeba kuma dhaco xarunta digaaga Somali Chicken waxaad ka helaysaa hilibka digaaga oo fresh ah waxayna leedahay xarumo lagu xanaaneeyo digaaga oo aad ka iibsan karto asoo nool si aad u xanaaneysato hadaba aan ku tilmaamay xarunta weyn ee Somali Chicken waxay ku taalaa isgoyska dabka wadada aad buundooyinka waxa kale oo ay laamo ku kala leedahay Madiino Xamarweyne Suqbacaad Tabeelo Culow gaar ahaan dukaanka Nuura Ice Cream iyo sidoo kale Golden Star Hotel oo ku yaala isgoyska Tawfiiq hadaba wixii faafaan inta dheer kala xiriir ciwaanada iyo nambarada shaashada kaaga muuqda hadaba hore u gaar xarunta xanaanada digaaga ee Somali Chicken